xalay nin burca ka hadlayay oo xogeeyaha dawladda hoose burcaan hayiri oo boorama la hadlayay ayaa rabaa in yaro jawaaba inaan idhaahdo ninkaas xogeeyaha ahi kelmad uu maayirka boorama yidhi ayuu damcay inuu ka jawaabo sideedii la rabay ugama jawaabin maayirku wuxuu yidhi keliya boorama oo caasimadii labaad ee dalka ah buuri burca macaayin reer burca macaayin cid kale waxba kama sheegin burca sidana ma odhan inankan xogeeyaha sheeganayaa xaalay intuu la kala baxay buu yacnii kamuu xanaaqsanayn boorama caasimadda labaada markiiba kelmadda afkiisa ka soo baxda waxay ahayd galbeedkan baa yidhaa saami ka hadla haddii caasimadda saami lagu helayo soo dhiga aflagaadooyin kalo badanna waan ka maqlaynay waxaan leeyahay xogeeyaha miscalculation xoog laad samaysay si khaldan baad u xisaabsantay aragtidaaduna aad bay u yarayd waanad aragti yar tahay waxaanan u malaynayaa markaaga horeba barbaarin ahaantaadii hore xumaydoo meel xumad ku soo barbaartay idhonno mala waxaad ahayd caruurihii tagsiga cad xaafaddii la odhan jiray burco ku koray inaad ahayd baan u malaynayaa sidaad u hadlaysay marka la eego waxa weeyaan magaaladan boorama laydhaa ama gobolkan awdal gobol gaadhi karaa maba jiro markaad eegto anoon ku lahayn caasimad baan doonaynaa haddaa waxa weeyaan boorama war madaxweynayaasha somalilan muusa u dambeeyo waxay ka soo baxeen boorama waxaa ka soo baxay daahir rayaale kaahin waxaa ka soo baxay siiraanyo muuse maanta kursiga fadhiyaa ka soo baxay war burca maxaa ka soo baxay yaa single president soo maray dalkan kama soo bixin kuwa soo socdaana waxay noqon doonaan kuwa halka ka soo baxay waxaa kuu sheegayaa oo kale waxaa tidhi boorama waxaa ku nool oo ka codeeyey 9,000 oo qof burcana 500,000 oo qof baa ku nool war hadday burco 500,000 oo qof ku nooshahay booramana 9,000 ku nooshahay 2018 cashuurihii la odhan jiray cashuuraha beriga hargeysa wanka gashay oo caasimadda ah boorama tuugahaydoo ku xigtay 2019 tii ambasador lagu qabtay boorama baa wanka ahay war haddii 500,000 iyo ka badan burco ku nooshahay oo maxaa tartanka cashuuraha u soo geli weydood soo bixi weydeen ood u soo saari weydeen waxaad kaloo tidhi beri siyaad barre waxaan hargeysa xamar waxay ahayd caasimadda hargeysana caasimadda labaad burca caasimadda saddexaad kismaayana caasimadda afraad waxaa adaa samaysatay waxaasi waa waxaad u saaxiibad samaysatay beriga muqdisho caasimadda koowaad baa ahayd waa la hubaa hargeysana ta labaad waa ta saddexaad yaa kaa dhigay adiga idaacaddaa kugu sheegtay ma jirin burcado kolleyba watii odhan jirtay waxaan xasuustaa 1984 1981 82 diyaaraduhu markay duqayn jireen waddanka diyaarada Itoobiya xabashidu gaalkacyo duqeeyeen berbera ay tageen hargeysa ee boorma ay duqeeyeen burco waxaaba la odhan jiray war xabashidu nacala beedkiyaal xabashidu namaba aqoonsaneen aan gobol lahay maxay noo duqayn lahayd taasina waxay ahayd waxalka ilbaxnimada aad ka taagan tahay in diyaaradu ku daqaysaa doonaysa xogaye aanoon dadka reer burcaynaan u gafa aan doonayn waxaan kuu sheegayaa saamiga annagu xaq baan u leenahay saamiga aad ka wada xanaaqsantihiin waxaan daynayna maa xaq baanan u leenahay tan aad iska tirsateed 100 ku sheegtayna tirakoobtu waa waxa aad diidan tihiin in gobollada la tirakoobo qolo walba wixii tiradoodu siisa la siiyo waxaan kaloo kuu sheegayaa saaxiibkay xogayow joometirnimadaada khaldan waxaa tiri burco waa 25 kilometer square booramana waa 4 kilometer square waad miscalculation xoog loo samaysay taasi waa jeebkaaga wax ka jiraana ma jiro waxaan kuugu soo gabagabaynayaa saaxiib anoo reer burco jecel oo dadka Soomaaliland oo dhanba jecel burcana gobolka ka soo shaqeeyay oo macallinka ahaan jiray toon aad u jecelahay haddana caasimadda labaad baanu leenahay oo saamigayagaanu rabnaa oo xaqayagaanu rabnaa xaqayagana gabadh burco hore uga hadashay way jirto saamiga ka gaabiya lahayd gabadhaas iyadu hadal igama geeday inaan idhaahdo waa inane laakiinse
ogaadaynan marnaba saamigayaga aananu ka gaabinayn saami la'aanna aananu doorasho ku gelayn taa canka dhiga sida biyaha loo cabo u caabaa xoogaha reer burcoona waxaan leeyahay dad wanaagsan oo sharaf laatiye laakiinse xoogayaha noocaaya ee intuu xanaaqo wuxuu doono ku hadlaya war magaaladii cilmiga waad u gaftay anu ka odhan maayo xaal sii oo adi xaalkaa ma rabno laakiinse tarbiyad yeelaan ku leeyahay si tarbiyadaysan u hadal haddeed oo ciyaalaha noqonin ciyaal orfano kala sidoodii awaadin ee sidii nin tarbiyad leh u hadal saaxiib waxaa kaa muuqday xanaaq fara badan maayarka Saleebaan kaliya wuxuu yidhi caasimadii labaad weeyaan Boorama xaq buu inuu leeyahay inuu yidhaahdo he has all the right to say that inuu sidaa yidhahdana xaq buu leeyahay waana nu ku taageersannahay marka aduu bilaash baad saaxiib la xanaaqsan tahay halka aad nooga aad leedahay burca khooyta gaadhay burca xaggan ka dhacday burca maxay tayaglow gaadhay tayaglow maayna ma xaafuuna gaadhin war caasimada labaad waa la yaqaanaa meesha ay tahay saaxiibow waxaanba ku helaynaa caasimada labaad wax kale ba iska daa madaxweyne kastoo ka soo baxa oo dalka xukuma halkan buu ka soo baxay for that sake on ku helaynaaba saamina saaxiib adikaaga ma fadhino burcooga ma fadhina saami hargeysa ma kama rabno ceergaaba kama rabno laascaanood saamigu waa waxaan xaq u leenahay doonayno wax aan daynaynana maaha haddaad isleedahay ku cabsiiyo oo sidaa ku daayaan ma daynayno xogaye mar labaad iyo mar saddexaad baan ku leeyahay idab yeelo xogayaashu idab leeyna idab yeelo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh